markii dhaqankiisu sidaa buu ahay oo mar walba oo nabiyullaahi Muuse soo agmaro wuxuu ahay nin wuxuu arki jiray asigu Ilaahay caabuday mar waa salaad buu tukanaya marna adkaartiisu akhrinaya dhowr jeer buu nabi Muuse ninkan agmaray maalintii dambe wuxuu ku yiri warniyow maad nasatid oo adiga maanta dhanna marna taagan marna tasbiixi adkaar ku jiray xogaa yar oo nasatid baa nafta u yara raaxaysa markaas baa ninkii caabidka wuxuu yiri akhsha an yaatiyana almowt wa ana mustariix waxaan ka baqayaa inuu geerida ii timaado anoo iska nasanayo meelaha iska fadhiyo marka waxaan jeclahay inaan salaadna ku jiro xillina adkaar tahayo haddii uu malakul mowt ii imaado anoo khayr iyo wanaag ku jiro oo markaas aan ilaahay kula kulmo weji wanaagsan nabi muuse wuxuu yiri warhaadhe wax aad ilaahay ka rabtaa jiro ilaahay weydiisanayso subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri nabi muuse saddex arrin haddaad ilaahay ii weydiiso waa jeclaan lahay wuxuu yiri soo sheeg waa ku weydiinayaa wuxuu ku dhahayaa muuse is'al illaaha an yarsuqanii ila allah ilaahay ii weydiino riliis igu arsuqo oo iga raalli noqdo waatan labaadee waa an laa yashqilanii bisiwaa cid asigii ka soo hartana waa inuusan igu shaqin wa an yulhimanii dikrahu xataa laa ansaah dikrigiisa inagu ilhamiyo ilaa aanan hilmaamin saddexdaas arrin un keliya ilaahay ii weydiiyo marka xilligii la gaaray nabiyullaahi muuse inuu ilaahay la hadlo buu markaa hadalladii ilaahay la hadlayay baa hilmaansiiyey addoonkan wuxuu ka dalbaday oo ilaahay lala hadlaya arrin yar ma aha waa arrin aad u culus marka waa uu hilmaamay laakiin ilaahay ma aha mid wax hilmaamay wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaa ma ahe mid ku hilmaamay oo la hadla ilaahay baa la hadla wuxuu ku yidhi yaa muusa alam yas'alka axadu min cibaadii shay-an mid ka mid addoommadiis miyuusa waxba ku soo wareersan miyuusa waxba ku weydiisan markaas buu soo xasuusto wuxuu yidhi haa yaa rabbi ilaahay wuxuu ku weydiisanaya inaad ridnaada siisid ilaahay wuxuu ku weydiisanaya inaad ku shukrinaadiyo khayrka ilaahay wuxuu ku weydiisanaya inaad dikrigaaga iyo xuskaada aadan hilmaansino maantana uu ku jiro markaas baa wuxuu yidhi ilaahay baa nabi muuse wuxuu yidhi u sheeg aniga addoonkaas dembiye fara badan buu galay xumaan fara badan buu sameeyey una dembi dhaafi maayo waan u caraysanahay subxaana allah nabi muuse soo baxay ninkii caabidka u imaaday ninkii wuxuu yidhi warhaadhana ilaahay waa ila hadlay arrintaadana ma khayraysno ilaahay wuxuu yidhi ninkaas waa u caraysanahay una dembi dhaafi maayo ninkii wuxuu yidhi hoosoo nabi muuse la hadlaya si kalsooni ah oo qalbu mu'min ah baa wuxuu ku yidhi yaa muusa wallaahi low anna rabbaka daradanii maa faaraqtu baabahu abadan ilaahay hadduu anigii ceriyo albaabkiisa meelaan u dhaafay ma jirto saasuu baa hortaagnaanaa maanta dhan intaas keliya markuusi ilaahay baa nabi muuse la soo hadlay waxaa lagu yidhi yaa muusa akhbir cabdii biannii qad radiitu canhu u sheeg addoonkii aniga raalli ka noqday wagafartu lahu waana u dambi dhaafay maa kaana baynii wa baynahu wax alla wax xumaan ore u sameeyo dhan waa u dambi dhaafay u sheeg oo waxa loo dhahayay laguma dambi dhaafayo waxa la tijaabinaya waa iimaankiisa waxa la tijaabinaya inuu ahay inuu addoon isu kalsoon yahay oo haddii hadda albaabka rabbi aad ka carartid xaggee baad u cararaysaa oo meel ka fiican miyaa jirta waa may marka ilaah waxa weydiisay inaad dambi dhaafo